السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتياش ku xiran channelkayga TikTok Sajiya kusoo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel walba aad joogtaan si walba maqalkayga idin soo gaarayo haduu rab raali ka noqdo maanta waxaan rabaa inaan sharaxaad ka bixiyo xubno xanuun ama kala-goysyo xanuun wax loo yaqaano insha Allah haddii aad ila socoto fadlan muuqaalka ilaa garay una share garay asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan mawduucan aad ku muhiimka ah haddii aan guda galno mawduuceena oo ah xubno xanuun haddaba xubno xanuunku waxa uu dhacaa marka ay jirka ama qofka boodigiisa ay miisaan ku darsoomaan sidoo kale ama ay bararaan galgoosyada ama ay dhamaadaan carjawga ku jiro galgoosyada labada laf waxa u dhaxaysa carjawgaas in uu markaas dhamaado haddaba labada laf waxa u dhaxeeya carjaw waa wax sida barkinta kale u fisan waxayna ka ilaaliyaan labada laf inay istaawato dhaqdhaqaaqa ama ay ka dhashaan meesha isxoqitaan culayska badan qofka uu fuulo kale inay magacnihi ay xijiyaan oo kale u sahlaan qofka soo culays wada xitaa inuu dhaqdhaqaaq uu sameyn karo haddaba haddii ay dhamaadaan carjawgaas ama ay baaba'aan waxa imaan kara isxoqid labada lafo ah waayo marka culays ay qaado ama culayskaaga istaagto galo culayska hoos u deg maxaa imaanayo labada laf inay isgaaraan ama isxoqaan waxaana imaanaya xanuun tiro badan sidoo kale barar haddaba waxaa jira arrimo halis u leh ama halis u ah xubno xanuunka waxaa kamid ah kow gaboobida qofka in uu da u noqdo halis ayaa u tahay misana lagu arko ilaa xanuunka ama galgoos xanuunka labo dhaawacyada laabtooyinka ay ka dhacaan ama laabyada gaara sidoo kale aad ay ugu daran tahay saddex isticmaalka xad dhaafka ah ee laabtooyinka badanaa marka isticmaaleyno ama wax culays aan qaadeen oo kale laabtooyinkeena aad u shaqeeyaan Soomaa marar badan waxa laga yaabaa inaan iska daba noqon anaga wax culays wadno inaan marba dhinaca u jeesano ama marba dhinacan jaleecno taasina ma loo baahna waxa waayo waxay hoos u dhac keenaysaa carjawga ku jira labada laf inta u dhaxaysa haddaba calaamadaha lagu garto maxaa kamid ah calaamadaha lagu garto xubno xanuunka ama laabata xanuunka maxaa kamid ah kow waxaa kamid ah laabtooyinka xanuunka ee aan xasiloonayn ama waxaad dareemaysaa in aysan taageeri doonin laftaada in ay markaas soo laabanto ay nafisan labo waxaad dareemaysaa malaaritaan ama barar ayaa dareemaysaa oo markaasi laabtada aad dareemayso saddex laabtooyinka oo tig noqdaan yani taagmaanba wayba taagmayaanba in aad lugta soo laabto wayba ku dhibaysaa ama gacanta aad soo laabto sida dhabarka kale dhabarka hadda markay ku xanuunaan laabtooyinkiisa maxaa imaanaya in hal sacsa isku kala bixiso afar isticmaalka laabtooyinka oo xadidaan waayo mar walba waxa laga yaabaa inaad iswareejin karin marka iswareejisay ama laabtooyinka aad rabto inaad ka shaqeysiiso waxaad dareemaysaa cadaadis fara badan iyo xanuun aad dareemaysaa haddaba ka hortagga lafa xanuunka waxa ay ku xiran yihiin hadba qofka siduu u dhaqmo ama ay tahay nolol maalmeedkiisa ama wax uu qabto shakhsiyadiisa ayaa ku xiran laabtooyinka ama jir xanuunka markaas qofka daawo la siin karaa ama la ogaan karaa in uu riix waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkani fadlan muuqaalka la garay una share garay asxaabtaada waxay su'aalo ahna nagu soo qor qaybta commentiga aad ay u mahadsantihiin